الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينك وحجينك قدوميها حسبك طريالك هي عدالة حبناها قولها وسيرة أقاسمها قودة أمنك وسارة داخلك صحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا إن الله وضع صعنه اللي كان يمينك كترنه waxaa gabagaba ah xilligii la bilaabi lahaa xalintii iyo dhaxgalkii iyo garnaqii wada hadalkii beelaha walaalaha ah muddada inta doorka ah shaqaaqadu ka dhex socotay degmada Ceel Afweyn iyo agagaarkeeda. Arrintaa hawlgalkeedii uu dhammaystiran yahay iminka dhammaan ergadii culimadii salaadiintii uqaashii waxgaradkii reer Somaliland ee hawshan geli lahaa oo tiro 60 ilaa 70 ku dhow waxay ku sugan yihiin hadda magaalada Ceel Afweyn. waxaa kaloo magaalada Ceel Afweyn ku sugan wafdigu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland iyo xubno golaha wasiirada Somaliland ka tirsan wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha wasiirka dakhliga agaasimaha guud ee wasaaradda dakhliga ayaa ku sugan Ceel Afweyn muddo ilaa 2 maalmood ku sugan oo ku dhex jira qaabkii iyo hawshan abaabulkeedii loo dhammaystiri lahaa. waxaa kaloo isaguna maanta noo yimi oo aad iyo aad ugu mahadsan gudoomiyihii xisbiga daryeelka iyo cadaaladda Faysal Cali Waraabe oo isaguna ka soo qayb galay in uu taladiisana ka geysto hawshiisana qaybtiisa ka qaato hawsha nabadeynta ee Ceel Afweyn. shirkan jaraa'id ee maanta lagu qabanayno ahmiyadiisu waxa weeye hanaanka geedi socodka muddada lagu jiro khilaafkan maxaan ku dhahday xalintiisa kaas oo ah ahmiyadiisa ugu weyni muddada hawsha lagu jiro iyo wixii ka dambeeyaba lagama maarmaan waxa ah shaqaaqadan jirtay lagu soo afjarayo in la sugo hawsha nabadgelyada maxaan ku dhahday deegaamada walaalaha ah. hawshaas oo noqonaysa koow marka ugu horeysa ciidamadii amniga ciidanka qaranka militariga iyo ciidanka booliiska aagan gobolka Sanaag joogay shaqaaqadana loo soo xil saaray iyo xukuumadda Somaliland ba si ay loo ilaaliyo arrinta nabadgelyada waxa loo qoondeeyay ama loo qorsheeyay ama la go'aamiyay in beelaha walaalaha ah meelaha ay ciidamadoodu iska gaadhayaan laga kala fogeeyo oo ciidan walba meel baa loo qorsheeyay haddii ay tahay aaga Dareere Weyne iyo haddii ay tahay aaga Fadhigaab ee la helay Laasdoomaare ee aagagbaa loo kala qorsheeyay. waxaanu maanta ku wargelinaynaa dhammaan beelaha walaalaha ah in ciidamadoodu ay ku sugnaadaan meelihii loo qorsheeyay. taasoo dawadeedu ay tahay macnaheeduna uu yahay in aanay maxaan ku dhahday shaqaaqa dambe aanay ina dhex marin oo nabadgelyada burburiso colaad dambe iyo dhaawac dambena abuurto oo aynaan uba baahnayn oo in ku filan aynu hore u haysanin. waa laba in ciidamada iyo dhaqdhaqaaqa aaga nooc kasta oo uu yahayba inay mas'uul ka tahay jamhuuriyadda Somaliland xukuumadda cidda fulinaysa ee hawsha mas'uuliyadeedu ay saaran tahayna ay tahay maxaan ku dhahday ciidamada Somaliland ee militariga iyo booliiska. taana aanu doonayna dadka inaanu ku wargelino in aanay ciidamada iskaga hor imanin ciidan kale oo hubaysan oo meel loo qorsheeyay meel aan ahayn joogin. kaasina wuxuu ina tusayaa ama waxa aynu qaadanaynaa inuu yahay colaad hurin, inuu yahay dagaal abuur, inuu yahay jibin xabad joojineed. marka waxaynu doonaynaa waxa ilmaha umusha u danaba ilmahana u danaba la yidhi maatadeenna iyo caruurteenna iyo deegaankeenna iyo harumarkeenna iyo ummadda walaalaha ah in ku filan shaqaaqo dhaawac iyo dhimasho keenta way soo martay. waxaynu maanta doonaynaa cid waliba in aynu tamarteena iyo caqligeena
iyo taladeena iyo fikirkeena isugu geyno in arrinta aynu nabadda aynu xoogga saaro waxaynu u baahannaho kale inaynu isla wada fahamno ciddii kastee nabadgelyo darro abuuraysa ama dhaqdhaqaaqa ciidan abuuraysa inaynu gacanta ka qabanno oo aynu ka joojinno inaanay maxaanku dhahdaye hawshaasi aanay dib inoogu fakanin waayeelka salaadiinta culimada cuqaasha codkarka labada beelood waxaanu ku baraarujinaynaa waxa aan leenahay colaad hurintana ha la joojiyo taladana ha la isugu geeyo nabadda iyo deganaanshuhu inuu sugnaado